wax ku yiraahdaa markuu maanta sidan ku leeyahay haddii ay dhacdo balliga codka ka doonaya ee berita doonaya inuu ka dhax ololeeyo shacbiga reer Berbero gobolka Saaxilow de waa arkaysaan waxa lagu soo duulay wax noloshiini way waxa la qudlay waa noloshiini Cabdiraxmaan Cirro oo isagu uu yahay taageero yahay marka horta wuxuu lumiyay ba taageerada xisbiga uu ku lahaa gobolka Saaxil buu lumiyo nabar buu isku dhuftay hadda waxaan ku leenahay sanka taagada soo dhaxsaday waanu ku sidanaa waana sidataa sanka taag adaa soo dhaxsaday madaxweyne soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad oo ku dooranay wuxuu tusay dadka reer gobolka Saaxil ka soo jeeda ee xisbiga wadani taageersan inaanay mustaqbalkoodu madow kaga jiro hadii ay fadhacdo inuu guuleysto waxaanu cadeynayeen gobolka Saaxil laga adkaado xisbiga wadani oo waan wax rajaani oo limbo cadeynaya Cabdiraxmaan Cirro oo isagu uu yahay taageero yahay marka horta wuxuu lumiyay ba taageerada xisbiga uu ku lahaa gobolka Saaxil buu lumiyo nabar buu isku dhuftay laakiin waxaan leeyahay reer Berbero shacbiga reer Berbero gobolka Saaxilow de waa arkaysaan waxa lagu soo duulay wax noloshiini way waxa la qudlay waa noloshiini inaad fadhiga ka kacdaan oo aad difaacataan oo aad ummadda u sheegtaan baa loo baahan yahay oo aad u cadeysaan hantidan cashuuraha bariga boqolkiiba maxaan ku 35 ayaa naga soo gala oo dadka markii hore cashuur bariga ma qaadaysan boqolkiiba 60 cashuura badda naga soo gala ka sakan naga soo gala sida awgeed waxaan leeyahay dadka reer Berbera inagu ma nihiin kuwa dadka ka maqruuqaya inagu ma nihiin dad ka xun laakiin waxaad ogaataan balliga codka ka doonaya ee berita doonaya inuu ka dhax ololeeyo oo berita doonaya inuu wax ku yiraahdaa markuu maanta sidan ku leeyahay haddii ay dhacdo sidee buu ku maamulaya كبر